dhegaystayaal sheekada soo socota oo dulucdeerkeedu yahay haadaba xil laga baray waxay tusaale fiican u tahay sida uu aadamuhu noolaha kale uga faa'idi karo xikmadaha eebba uu ku abuuray oo dhegaystow ma og tahay in xabaal qodista iyo mayd aasidaba tukuhu uu bani aadamka baray sidaasoo kale ayay quraanjaduna soomaalida ku leedahay noloshu hoggaan iyo kala dambayn kullaba kama maarantee balaanu dhaafo maxamed axmed ilka case oo isagu sheekadii haadaba xil laga baray inala socodsiiya waa arooryo suuban oo sagalka cirku raadeeyey midabo cuddoon ayaa si farshaxannimo leh ugu dhilan cirka ilqabadka cirku markuu sii durkaba waxaa sii badanaya quruxda cirka subaxa habeenkiisa roobanaa cabdixakiin iyo saaxiibkii rashaad waa subaxii ay toddobaadkaba dhowrayeen maalinnimadii waxa ay boobsiiyeen howlihii waajibaadkooda ahaa mooddii galbeed baa qariyey qorxdhici waxaadna moodaysaa in sagalkii arooryaad baratan qurxeed uu kula jiro cirkiiba wuxuu noqday bar dahabi ah mid cad iyo barxalan cabdixakiin iyo saaxiibkiis rashaad waxay isku taageen dhar waxay haysteen kii ugu qurux badnaa ishii aragtaaba way garan kartaa inay hawl maaggan yihiin waxay ku jiraan carcartii dhallinyarinimo kaftankii maalla'aaneed taas oo xodxodashada dumarku ugu weyn tahay iyaga oo tallaabada boobsiinaya kuna socda madashii ay kula kulmi lahaayeen qalanjooyinkii filkooda ay ka caleema saarteen ayaa roob tixtiix ahaa oo aan laga didaynin hal mar isha baalkeeda mahiigaan isu rogay qof kasta wuxuu ku orday hoygiisii oo aan ka dheerayn labadooda tala ayaa qabsatay su'aal isku mid ah ayaa midba kan kala weydiiyey xaggeen aadnaa waa gartoodoo madashii ay ku socdeen uma dhowa guryihiina casargaabkii ayay ka yimaadeen intaan laba tuka isdhowrin ayaa riyo roobka ka cararaya waxa ay gabbaadsadeen barando aan ka fogayn halkii ay joogeen halhaleel ayay labadii wiil ee saaxiibka ahaa waxay naf bideen barandadii waa goobaan dhibic rooba lagu ogayn waana meherad xidhan oo inta qorraxdu soo jeedo jaadka lagu gado cabdixakiin waxa uu ka talinayey sidii marka roobku qaado ay madasha u gaadhi lahaayeen wuxuu kaftan ahaan saaxiibkiis ugu xifaalaynayaa dharkiisa qoyey iyo ballankiisa qabyoobay intaas uu hadlayey rashaad isagu marnaba ma libicsan sidii dudun roob helay ayuu jidhka isgeshay hal cabbaara kadib ayaa saaxiibkii la yaabay wuxuu ilaa heerkaas ka fakerayo maxaa kugu dhacay buu 3 jeer marba weydiiyey isagoo garabka qabanaya warcelinna wuu kala quustay rashaad waxaa ku weynaa roobkii mahiigaankahaa iyo sidii riyuhu gabbaadka u tuseen waxaana maankiisa ku soo dhacday qisadii qaabiil iyo sidii eebbe ugu irida furay haadana wuu uga xilbartay لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. saacad ka mida saacadaha xilliga wareega ayuu dembigii dhacay. gacanta walaalkii ayuu haabiil ku dhintay. wuxuu eersaday doqonniimo, aqoon gaabni, jacayl dumar iyo hawaawiga aan la hor joogsan karin ee nafta. iftiinkii nolosha ayaa bakhtiyey. dhiiggii baa oogadii haabiil ku qaboobay. quruxdii bay isa sagootiyeen. wuxuu ka maqnaaday meelihii ay aabbihiis isku arki jireen. nebi aadan ayaa kolkaa murugooday. meel walba ayuu ka dhacay si uu raq iyo ruux haabiil u soo helo. markaasuu qaabiil weyddiiyey in uu walaalkii meel ku sheego. wuxuu ugu jawaabay hadallo fudayd iyo xurmadarro ay ku dhan yihiin. wuxuu ku yidhi, ma ogi, saa aniga xilna igama saarnayn, ilaaliyihiisana ma ahayn. hase yeeshee aadan wuxuu gartay in wiilkiisii la dilay. wuuna iska aamusay, isagoo weliba qaba xanuunka uu la taaho aabba kasta oo curadkiisa ciidda afka loo geliyo. isaga waxaa u dheeraa xanuun kale. labadiisa gacmood ayay mididdii kala dishay. wuxuu haabiil noqday ruuxii u horreeyey ee arlada dusheeda lagu dilo. sidaa daraaddeed qaabiil wuxuu garan waayey sidii uu meydka walaalkiis u asturi lahaa. saab buu ku ritay oo dhabarka saartay. wareer baa ku dhacay. laabta ayaa gubatay. nacayb iyo dareenka jacaylka walaaltooyo ayaa naftiisa ku dhex dagaalamay. jiifkii ayuu qaban waayey. hoog iyo ba' iyo ceeb buu la dhuldhici waayey. muddo dabadeed meydkii ayaa soo uray. qaabiilna intuu ku dhibtooday ayuu culayskii sidi waayey. waxa uu yeelana garan waayey. halkan markay arrintu marayso waxaa qasab ahayd inay naxariista eebbe soo degto si loo dhowro maamuuska uu meydkaa daahirka ahi leeyahay, si dadka loogu sameeyo xeer ay markaas oo kale ku dhaqmaan. sharafta aadan iyo dhashiisana loo joogteeyo. sidoo kale waxaa qasab ahayd in cashar adag la siiyo gacankudhiiglahaas laabtiisa nacaybku buuxiyey. qof ahaan isagu waxyiga eebbe ma mudna ee waa in uu tuke arday u noqdaa. waa inay aqoontiisu ka yadhaataa aqoonta shimbirkaas madow ee aanay cidi maamuusin. casharkaas xanuunka badan kadib waa inay shakhsiyaddiisu halkaas ku dhammaataa. nolosha inta uga hadhsanna dulli iyo cadaab joogto ah wuu ku ilaystaa. wuxuu eebbe soo diray 2 tuke. way dagaalameen. mid baa laga adkaaday oo la dilay. kii wax dilay ayaa gafuurkiisa dhulka ku qoday oo meydka kii bakhtiyey ku aasay dabadeed. kolkaas buu qaabiil aad u qoomamooday. wuu iska baroortay. murugadii badnayd ayaa dabadeed waxay ka yeedhsiisay hoogay oo ba'ay. ma wax tuka gartay baan garan waayey oo sidiisa oo kale walaalkay u asturi waayey. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. aayaddii markay dhammaatay ayuu roobkiina kacay. rashaadna kor u eegay saaxiibkii oo goorahanba yaabanaa. wuxuu ku yidhi ina mar haddii roobkii qaaday. waxayna ku tashadeen in ballan kale la galo, haddeerna layska guryo noqdo. toddobaadda kadib labadii saaxiib way kala tegeen oo rashaad ayaa magaaladii barbaarinta ka tegey. dabar iyo hoggaanba ka adag oo waata la yidhi dani waa seetee wuxuu u jihaystay bal inuu dheef wanaagsan iyo waayo aragnimo dhulka eebbe ka doono. cabdixakiin iyo saaxiibkii rashaad waxay taagan yihiin koob ay yaraantii kubadda cagta ku cayaari jireen.
waa ka hor intaanay dugsiga sare ee magaaladii barbaarinta ku biirin. barwaaqo iyo bashbash baa beeshu qabtaa. koobta oo ramaas wanaagsan leh waxaa daaqaya adhi aan ka badnayn 10 neef. oday ayaa ri u yeedhyeedhaya, wuxuuna leeyahay dhiigo dhiigo. labadii saaxiib way la yaabeen magacii uu odaygu rida ugu yeedhayay. inta ay odaygii u tegeen bay ku yidhaahdeen, adeer, rida aad u yeedhayso magac kale miyaad u weyday? dhiiggu waa halis oo waa halbowlaha. rida waxaad u bixisaa dhiimo. odaygii inta uu dhoolla caddeeyey ayuu yidhi, waa runtiin, dhiimo cas ayaan u bixinayaa. labadii wiil sidii magaaladaba caanka ka ahayd waxay qaateen xinne, waxayna soo kor istaageen ridii oo inta ay muqeeyeen korka ka mariyeen xinnihii. waayo ridan magacii waa laga beddelay oo mid dhiin ah ayaa lagu sameeyey. wiil dhallinyaro ah oo ilaa 3 gu ka yar labadooda ayaa hal mar istaagay. isagoo aad u qoslaya ayuu yidhi, waryaadh aheen maaha kani ri ee waa orgi. yaab iyo amakaag waa sida uu wiilka reer baadiyaha ay sheegayo. waxay wiilashu u xinaynayeenba waa orgi. mar labaad ayuu wiilkii hadalkii ku laabtay oo waxa uu yidhi, haddaydaan ri iyo orgi kala garanaynin sidee baad nolosha iyo geerida u kala garanaysaan? oo inta uu madaxa ruxay wuxuu si la yaab leh u yidhi, soomaali soomaali. waabaa ku baryey labadii wiil ee saaxiibbada ahaa. mar kale waagii baa galac ku yidhi rashaad oo isagu qisadan dambe ku riyooday.